war-saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen dalalka Sacuudiga, Qatar, Jabuuti, Masar, Urdun, Turkiga, Bakistaan, Indonesia, Soomaaliya, Falastiin, Cumaan, Suudaan, Yaman, Mauritania iyo Lubnaan ayaa si adag uga hor yimid qorshe la sheegay in Somaliland ay safaarad uga furanayso magaalada Qudus ee la haysto. Dalalkan ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ka hor imaanayso shuruucda caalamiga ah isla markaana ay xadgudub ku tahay xaaladda gaarka ah ee magaalada barakaysan ee Qudus oo ay ku tilmaameen caasimadda dowladda Falastiin. War-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi lama aqbali karo in Somaliland ay safaarad ka furato Qudus oo la haysto. Arrintaasi waxay jebinaysaa qawaaniinta caalamiga ah waxayna dhaawac ku tahay xuquuqda shacabka Falastiin. Sidoo kale dalalkan ayaa mar kale caddeeyay taageeradooda ku aadan midnimada, madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dhanka kale waxaa si weyn loo hadal hayaa maqnaanshaha Imaaraadka Carabta ee war-saxaafadeedkan iyadoo la tuhunsan yahay inuu la dhacsan yahay qorshaha ay wadato Somaliland.